السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داودayal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha bulshada sporti waanu Xasan Umar Xuseen qodobada inii hayana waxa kamid ah Talyaaniga ayaa 3 sano kadib ku guuleystay koobka qaramada Yurub Real Madrid ayaa aad u xiiseynaysa Demesgard Bayern Munich ayaa doonaysa inay la soo wareegto Chiesa Arsenal ayaa ku raad joogta dalabka Onana Man City ayaa dalab u diraysa difaaca Fulham Robertson intaasi waxay aan qodobadii wararka aadana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Talyaaniga ayaa 3 sano kadib ku guuleystay koobka qaramada Yurub qodobkaasi waxa eegaya biibaaye xulka qaranka dalka Talyaaniga ayaa muddo 53 sano kadib ku guuleystay koobka qaramada Yurub kulan ciyaareedkii adkaa ee xalay ka dhacay garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ee wadankaasi Ingiriiska ayaa ahaa kulan aad u xiiso badan oo ay u soo daawasho tageen in ka badan 60,000 oo daawada waxaana waqtigan xaadirka la xusay in xulka qaranka wadanka Talyaaniga ay muujiyeen awoodii iyo firfircoonidii ku lahaayeen koobka qaramada qaarada Yurub xil ciyaareedkani isbedel xoogan ayay muujiyeen iyadoo ciyaarta waqtigii loogu galay ay ku soo ilaatay min gool iyo gool 30 daqiiqo oo ay u baahatay ciyaarta in lagu daro ayaa sidoo kale ay iska dhilin waayeen wax goolal ah saas darteed waxa ay noqotay ugu dambeyn inay ku kala baxaan dhinaca gool kulaadka labada dal ee England iyo Talyaaniga haddaba bilowgii tartanka koobka qaramada Yurub ee 1960kii ayay markay ahayd isbedeladii ugu xoog badnaa bilowga tartankaasi xulka qaranka dalka Talyaaniga ayaa tartankani markii ugu horeysay ku guuleystay taariikhda 1968 waqtigaasi uu ka guuleystay xulka qaranka wadankaasi Yugoslavia oo ay ku ciyaarayeen Stadio Olimpico ee magaalada Roma dalkaasi Talyaaniga xulka qaranka dalka Talyaaniga wixii intaas ka dambeeyay jeer final ayuu markaas soo gaaray sanadihii 2000 iyo sidoo kale 2012 waxaana ugu dambeyntii ay noqotay inuu guuldarooyin kala kulmo dalalka Spain iyo France oo sanadahaasi ku guuleystay waxaana sanadka aynu ku guda jirnaa 2021 tartankii baaqday ee sanadkii tagay 2020 ayay ugu dambeyn u suurta gashay in xulka qaranka dalka Talyaaniga loo shaabadeeyo inay markaa ku dabaaldegaan caasimadooda dalkaasi Talyaaniga waxaana ugu dambeyntii kabtanka xulka qaranka dalka Talyaaniga Giorgio Chiellini uu xusay ciyaarta kadib inuu ku haminayo sanadkani inay nasiib u lahayd inay qaado xulka qaranka wadankaasi Talyaaniga dhinaca rigorooyinka xulka qaranka wadankaasi England waxa ka berdareeyay xidigaha bedelka ku yimid sida Marcus Rashford, Bukayo Saka iyo Jadon Sancho halka labada rigoro ay xulka qaranka ay ka berdareeyeen xidigaha Andre Belotti iyo Jorginho waxaana ugu dambeyntii 3 rigorooyin koobka qaramada Yurub ku guuleystay xulka qaranka dalka Talyaaniga taariikhda koobkani waxa 3 jeer markaa ku guuleysatay xulka qaranka wadankaasi Germany sidoo kale waxa min 3 jeer ayana qaaday koobka qaramada Yurub xulka qaranka wadankaasi Isbaanishka Talyaaniga 4 jeer ayuu markaa finalka tartankani uu soo gaaray 2 jeer waa uu ku guul dareystay 2 jeerna waa uu qaaday sidoo kalena 2 jeer xulka qaranka dalka Faransiiska ayaa markaa ku guuleystay laakiin xulka qaranka dalkaas England oo markaa stadiumda Wembley Stadium lagu ciyaariyay ayaa markii ugu horeysa taariikhda soo istaagtay finalka waana ay ku guul dareysteen inay riyadooda markaa ka dhabeeyaan Real Madrid ayaa aad u xiiseynaysa Demesgard qodobkaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi xidiga khadka dhexe ee Sampdoria Michael Demesgard ayaa xiiseynaya Real Madrid sida laga soo xigtay Toto Sports balse Blancas ayaa qorsheynaya inay xilli ciyaareedkan la soo wareegaan 22 jirkani khibrada badan kadib ololihiisa fiicnaa uu ku soo bandhigay tartanka Euro 2020 ee xalay ku guuleystay xulka Talyaaniga kooxaha kala ah Barcelona, Liverpool, Everton, AC Milan, Inter, Juventus iyo Roma ayaa dhamaantood indhaha ku haya xidigani laakiin kooxda Sampdoria ayaa isku dayi doonta inay sii haysato xidigeeda xilli ciyaareedka kale Bayern Munich ayaa doonaysa inay la soo wareegto Chiesa qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed tababaraha cusub ee Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa qirtay inuu jeclaan lahaa inuu la soo saxiixdo xidiga Juventus ee Chiesa ayaa ka caawiyay xulkiisa Talyaaniga guushii finalka ee Euro 2020 ee soo gabagabowday xalay laacibkan Chiesa ayaa aad u soo jiitay maamulaha cusub ee Bayern Munich Julian Nagelsmann xil ciyaareedkan waxaan garanayaa muddo dheer waxaanan u maleynayaa inuu yahay xidig aad u wanaagsan akhlaaqdiisa si kastaba ha noqotee wuxuu sidoo kale haystaa qiimo aad iyo aad u weyn xilli ciyaareedkan Arsenal ayaa rajo kala dalabka Onana maamulka kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xilligan xusaya isbedel xoogan inay ka sameeyaan dalabka ku aadan ciyaaryahanka kooxda Ajax
Andre Onana. Goolhayahani 25 jirka ayaa loo arkaa shakhsi ku habboon waqtiga kan xaadirka istaadiyaha kooxda kubadda cagta Arsenal maadaama ay doonayaan in isbedel xooggan ay sameeyaan. Kooxda Gunners-ka ayaa u aragta bedelka ugu macquulsan ee Lennon kaasoo laga yaabo inuu isaga dhaqaaqo xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Arsenal sida laga soo xigtay Fabrizio Romano. Kooxda ka dhisan horyaalka Faransiiska ee Lyon ayaa fursad xooggan u aragta wadaxaajood ku aadan xidiga Onana waxaana la shaacinayaa in xilligan wada hadal wanaagsan ba uu dhaxmarayo kooxaha kubadda cagta Ajax iyo Lyon ujeedka ugu weyn waa goolhaye Onana. Haddii Arsenal ay doonayso inay xaqiijiso Onana waxa laga yaabaa in ay si dhaqso leh u weerarto bartilmaameedkeeda ku aadan goolhaye Onana. Man City ayaa dalab u diraysa difaaca Fulham Robertson qodobkaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi. maamulka kooxda Manchester City ayaa u aqoonsatay Robinson inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga xilligani. Kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa rajaynaysa inay Wolves ku garaacdo saxiixa 23 jirkani kaasoo qandaraaska kula jira kooxdiisa Fulham dhamaadka sanadkan 2024. Pep Guardiola ayaa doonaya inuu kansado xiddigani Robinson si uu ugu xoojiyo kooxdiisa dhanka difaaca isagoo arkay ciyaaryahankani heerka caalamiga dalka Mareykanka waxaana la isku afgartay inuu waqtigani la dhaqaaqo dalabka difaacani dhamaadka bishani. Juventus ayaa xoojinaysa dalabka Jesus. Juventus ayaa doonaysa inay la soo saxiixato weeraryahanka kooxda Manchester City Gabriel Jesus. Laacibka reer Brazil ayaa bartilmaameed muhiim u ah iyagoo doonaya inay dib u soo ceshadaan awood ay ku lahaayeen horyaalka Talyaaniga sanadihii ugu dambeeyay. Tutto Sport ayaa shaacinaysa wararka ku saabsan Gabriel Jesus. Juventus ayaa doonaysa inay xaqiijiso dalabka Gabriel Jesus iyagoo ka cabsi qaba kooxda inuu ka tago Cristiano Ronaldo. Warbaahinta Talyaaniga ayaa xusaysa Cristiano Ronaldo inuu ka tagayo xagaagan kooxdiisa maadaama uu ku faraxsanay kooxda Juventus xilligan. Barcelona iyo Tottenham ayaa raadinaya Renato Sancho qodobkaasi waxa eegay Xuseen Cumar. Barcelona iyo Tottenham ayaa ka mid ah kooxaha la xiriirinaya saxiixa Renato Sanchez xilli ciyaareedkan sida ay qortay Litan Sports. Kooxda Barcelona ayaa hore u sii wadaysa inay la soo wareegto khadka dhexe inkastoo aysan u haysan dhaqaale ku filan. 23 jirkan ayaa xilli ciyaareed wanaagsan la qaatay kooxdiisa Lille isagoo si weyn uga dhex muuqday xulkiisa Portugal ciyaarihii Euro 2020. Tottenham ayaa ku fasiixi lahayd inay sugto Renato Sanchez inta ay leegi lahayd miisaaniyadiisa. Renato Sanchez ayaa ku fashilmay heshiiskii ugu weynaa ee Bayern Munich ayaa laga yaabaa inuu rumaysan yahay inuu booskiisa waqtigan. Kooxda Liverpool ayaa si xoogan ula xiriiraya xidiga reer Portugal oo raadinaya bedelka Wijnaldum oo dhawaan ku biiray kooxda reer France ee PSG ayaa soo dhaweynaysa dalabka Pogba qodobkaasi waxa inoo eegaya Biibaaye. kooxda ka dhisan horyaalka liigoonka wadanka Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaa xusaysa in waqtiga kan xaadirka ay aad u soo dhaweynayaan dhawaaqii ugu dambeeyay ee ka soo baxay maamulka sare ee Manchester United ay xusayeenba in ay diyaar u yihiin in istaadiyahooda Old Trafford ka fasixi doonaan wiilka reer Faransa ee Paul Pogba. maalmihii ugu dambeeyay ayaa laacibkani Paul Pogba la xusayay inuusan ku qanacsaneyn inuu joogo magaalada Manchester ee wadankaasi Ingiriiska waxaana waqtiga kan xaadirka Paul Pogba oo ku jira 12 bilood ee ugu dambeysay waxaan warbaahinada qaarba ay xusayaan in xilligaani ay guddiga fulinta ee kooxda Manchester United ay isku raaceen in laacibkani Pogba uu isaga dhaqaaqo xilli ciyaareedkani inta uusan kooxda kaga dhaqaaqin suuqa xurta ah laacibkaasi Paul Pogba ayaa waxa isku haystay dalabkiisa sida Juventus, Paris Saint-Germain iyo Real Madrid maadaama qoyska uu ka soo jeeda laacibkani reer France ee Paul Pogba ay wiilkooda bay la doonayeenba in uu u dhaqaaqo magaalada Madrid ee caasimadda wadanka Isbaanishka si uu la shaqeeyo madaxweynaha kooxda Real ee Florentino Perez. balse Manchester United ayaa hadda aqbali karta inay ciiraankooda ku biiciyaan adduunyadeed gaaraya 50 milyan maadaama laacibkani Pogba la filayo inuu isaga dhaqaaqi doono xil ciyaareedkani istaadiyaha Old Trafford. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports waa aniga Xasan Cumar Xuseen sidaas iyo nabadgelyo. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii ciyaaraha Bulsho Sports waa aniga Xasan Cumar Xuseen sidaas iyo nabadgelyo.